السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا walaashana darajada ku cusub tahay subscribe saar kambalelkana taabo si ay fariin walba. Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo ay ku wada kulmeen magaalada Addis Ababa. Madaxweyne Biixi oo ka hadlay aqalka baarlamaanka ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in kulanka Farmaajo mid hore loo sii qorsheeyay. Waxa mudanayaasha labada aqal u sheegeen arrinta imaanshaha madaxweynaha Farmaajo ee magaalada Hargeysa ay tahay halhayn aan suurtagal ahayn. dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya waxa hadlay wasiirka wafaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maareeye, waxaana uu yiri wax warar kama hayo safarka uu ka hadlayo madaxweynaha Farmaajo ee ku tagayo magaalada Hargeysa. laakiin intaa wuxuu sii raaciyay Maareeye Maxamed Cabdi buuqa iska daaya oo la yimaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadaan isbedelka siyaasadeed, dhaqaale iyo amniga ee ka socda guuska Afrika iyo amni iyo adduunka. madaxweyne Muuse Cabdi waxa uu sheegay inuu soo dhaweeyay raaligelintii uu ka bixiyay waxyaabihii Somaliland ka soo gaaray talisyadii kala dambeeyay ee Soomaaliya kala duwan oo ay ku kala kulmeen laba mas'uul ee ka kala socda Soomaaliya iyo uu ka muujiyay inuu Farmaajo ka dalbo ciidamadii hubeysnaa la dagaalamay dowladda Soomaaliya inay iyaguna raaligelin bixiyaan. labada hogaamiye ayaa si weyn baraha bulshada loogu hadalhayay balaniyo reegno shacabkii Hargeysa yimaado ay wada hadlaan madaxweynaha Soomaaliland. waxaan arkaa guul soo yeetay ummadda Soomaaliyeed waayo waxna waa Soomaaliya ma kala maarmaysto in madaxweynaha xaqana weeyaan Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo dhaweynaa waan taageersan. aygu waa Cabdirasaaq Cali Axmed. Cabdirasaaqo sidoo aragtay maatinka Farmaajo magaalada Hargeysa markii dhawaan kulmeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. waa khayr weeye soo kordhay laba dawladood oo jaaro Soomaaliyeed oo labadoodii madaxweyne sarkeen taanu dadku waxay ku hadlayaan garan maayo diyaarad baan la dhacayo ber baanu qaxnay waxaas macna male dadku way istiraan way heshiiyeen jarmalkii bariya galbeed loo kala qaybiyay baa midoobay adduunyada horumar bay ka fikiraysaa waxay ka fikiraysaa warshado deked waxaanu leenahay bad balaaran baynu leenahay deked malihin kalluunkeenii baa la iska gurtaa in dalka labada dalba la dhiso oo labada madaxweyne sarkaan oo ay Hargeysa isugu yimaadaan oo ay xamar isugu tagaan kan Hargeysa lagu soo dhaweeyo maxaa ceeb ku jira sidoo aragtaa fikirkaaga ah in madaxweyne Farmaajo uu 29 sano kadib maanta magaalada Hargeysa yimaado horta walaal laba kala duwan horta Farmaajo inuu Hargeysa yimaado isagoo oo sita magaca madaxweynaha Soomaaliya marna suuroobi mayso isagoo calankiisa sita oo Hargeysa ka soo dago laakiin waxaan soo dhaweynaa isagoo ah matalaya wafdiga Abay Axmed la socda isagoo ah oo aan sidan taytalka madaxweynimo laakiin kamid noqonaya wafdiga la socda Abay Axmed calanka Itoobiya lagu soo dhaweeyo Abay Axmed balse calanka Soomaaliya aan la surin madaarka iyo goobaha Hargeysa ka midayda Somaliland ka Itoobiya wada gashay ka Soomaaliya wadiidan galnay ha hilaalo la magaca lagu naalaysa hilaalo wala labada magac baan leeyahay waxaan ka hadlay ra'yigayga ka dhiibto qof walba ra'yi buu leeyahay imaatinka madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne ra'iisul wasaare Abay Axmed waxa weeye horta anaga Soomaaliland ahaan magac weyn iyo sharaf ay noqotay anagoo Soomaaliland calankayga haysana dawladnimadii ku fadhina kuraasida in badan baan jeclay inaan isu wada nimaadno sida caalamku inuu arko way ka sii wanaagsantahay waan jeclahay inaan soo dhaweyno waliba laba jamhuuriyad baan ahay anaga Soomaaliya oo wala ah oo wax isku darsaday isuna gal waayo kala go'ay oo gooni kala fadhiya sideen baan anagu jamhuuriyaddii u nahay Soomaaliland aan u nahay waxa weeye inuu inoo yimaado wax weyn buu ku soo kordhinaysaa waan aaminsanahay caalamkana in la arko jamhuuriyaddii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo wanaagna Allah ku dhameeyo